Margot waxay tagtay Holland bishii Diseembar, waxaana raacay Febraayo markii aan ahaa. Miiskii waxaa loo keenay hardiyad dhalasho oo Margot. Waxaan isla markiiba ka bilaabay dugsiga xanaanada ee Montessori. Halkaas ayaan joogay 6 sano. Markaas ayaan bilaabay fasalka koowaad. Fasalka 6aad macallinkaygu wuxuu ahaa Miss Cooperos, maamulaha. Dhammaadkii sanadka labadeenaba waanu ilmeynay sidaan dhahnay. Macsalaameyn qalbi jab leh, sababtoo ah waxaa la iga aqbalay Yuhuuda Liceum halkaas oo Margot sidoo kale waxay tagtay dugsiga. Nolosheenu ma ahayn walaac la'aan, maadaama qaraabadayada Jarmalka ay ahaayeen silica hoos yimaada sharciyadii Hitler ka dhanka ahaa Yuhuuda. Kadib pogroms ee 1938 labadayda adeero walaalaha hooyaday waxay ka carareen Jarmalka, iyagoo mangalyo nabdoon ka helay waqooyiga Ameerika. Ayayday oo waayeel ah ayaa noo timid si ay nala noolaato. Waxay ahayd 73 sano jir ah waqtigaas. May 1994 kadib waqtiyadii wacnaa way yaraayeen, way kala fogaayeen. Marka hore waxaa jiray dagaal, kadibna capitulation, kadibna imaatinka Jarmal, taas oo ah marka dhibaato ayaa ku bilaabatay Yuhuuda. Xorriyadayada waxaa si aad ah u xadiday Naasiga. Awaamiirta Yuhuuda ka soo horjeeda Yuhuuda waxaa laga rabay inay xidhaan xiddig jaale ah. Yuhuudu waxaa looga baahan yahay inay soo celiyaan baaskiiladooda. Yuhuuda waxaa laga mamnuucay inay isticmaalaan baabuurta waddooyinka. Yuhuuda waxaa laga mamnuucay inay raacaan baabuurta, xitaa kuwa ay leeyihiin. Yuhuuda ayaa laga rabay inay sameeyaan wax iibsiga inta u dhaxaysa 3 iyo 5. Yuhuuda waxaa laga rabay inay furtaan timo jaraha iyo meelaha qurxinta. Yuhuuda waa laga mamnuucay inay bannaanka joogaan jidadka inta u dhaxaysa 8 pm iyo 6 am. Yuhuuda waxaa laga mamnuucay inay soo xaadiraan tiyaatarada, filimada ama nooc kasta oo kale oo madadaalo. Yuhuuda waa laga mamnuucay inay isticmaalaan barkadaha dabaasha, garoomada tenniska, garoomada xeegada ama garoomo kale oo ciyaaraha fudud. Yuhuuda waxaa laga mamnuucay in ay dhaan raacaan. Yuhuuda waa laga mamnuucay inay ka qayb qaataan ciyaaraha fudud. Dhaqdhaqaaqa dadweynaha. Yuhuuda waxaa laga mamnuucay inay fadhiistaan beerahooda asxaabta kadib 8 pm. Yuhuuda waxaa laga mamnuucay inay guryahooda ku booqdaan Masiixiyiinta. Yuhuuda waxaa laga rabay inaad dhigataan dugsiyada Yuhuuda. Ma aad samayn kartaan tan? Taas ma samayn karin, laakiin noloshu way sii socotay. Jacque ayaa had iyo jeer igu odhan jirtay, kuma dhiiran karo inaan sameeyo wax kale sababtoo ah waxaan ka baqayaa inaan la ogolayn. Xagaagii 1941 ayeeyo xanuunsatay oo waa la qalay. Markaa aniga dhalashadii ayaa ku dhaaftay dabaaldeg yar. Xagaagii 1944 wax badan maanu qaban dhalashadayda midkoodna, maadaama uu dagaalku hadda ka dhammaaday Holland. Ayeeyo way dhimatay Janaayo 1942. Qofna ma garanayo inta jeer ee aan ka fikiro iyada oo aan weli jeclahay. Dabaaldega dhalashada ee 1942 waxaa loogu talagalay in lagu kabo kuwa kale iyo shumac. Ayeeyo ayaa la shiday intii kale. Afartayadu weli si fiican ayaanu u wadnaa. Taasina waxay i gaadhsiinaysaa taariikhda la joogo ee June 2 1942 iyo u hurista xushmadayda. Sabti, Juun 2 1942. Gacaliya Kitty. Aan isla markiiba bilaabo, way fiican tahay oo way aamusan tahay hadda. Aabe iyo hooyadu way maqan tahay. Margot waxay aaday inay la ciyaarto ping pong iyada iyo qaar kale oo dhalinyaro ah. Dadka saaxiibkee Trace. In badan ayaan ciyaarayay ping pong naftayda waayadan dambe. Ilaa 5 gabdhood ayaa naadi dhisnay. Waxaa la yiraahdaa The Little Dipper -2. Runtii magac doqon ah, laakiin qalad ku salaysan. Waxaan doonaynay inaan naadigeena u bixino magac gaar ah, iyo sababta oo ah waxaan ahayn 5 naga mid ah. Waxaan la nimid fikradda dibber yar. Waxaan u malaynay inay ka kooban tahay 5 xidigaha, laakiin waxaan u jeesanay qalad. Waxay leedahay 7 sida Big Dipper, kaas oo
sharxayaa labada laga jaray. Ilse Wagner waxa uu leeyahay set ping pong ah, Wagnersna way fasaxeen. Waxaan ku ciyaarnaa qolkooda weyn ee wax lagu cunteeyo markasta oo aan rabno. Tan iyo markii aan 5 ping pong. Ciyaartoyda jecel jalaatada gaar ahaan xagaaga iyo tan iyo markii aad hesho ciyaar kulul. Ping pong ciyaaraha iyagu waxay inta badan ku dhammaadaan booqashada qolka barafka ee kugu dhow. Taas oo u ogolaanaysa yuhuuda midkood Oasis ama Delphi. Muddo dheer ayaanu joojinay ugaarsiga. Agagaarka boorsadayada ama lacagta, inta badan waqtiga aad ayay mashquul Oasis in aan maamul si aad u hesho dhowr nin oo dhalinyaro ah oo deeqsi ah oo aanu isnaqaano ama la dhacsan. Noo sii jalaatada ka badan inta aan cuni karno usbuuc gudihii. Waxaa laga yaabaa inaad yara yaabtay inaad maqasho anigoo ka hadlaya dadka xiiseeya ah dada hindisada. Nasiib darro ama maaha, sida xaaladdu tahay, ku-xigeenkani wuxuu u muuqdaa inuu yahay ku baahsan dugsigeena. Isla markii uu wiil weydiiyo bal inuu baaskiilka guriga kula joogo iyo waxaan helnaa inaan wada hadalno 9 jeer 10kiiba, waxaan hubaa inuu ku farxi doono. Bartii oo iima ogola inaan ilbidhaqsiyo indhihiisa ka baxo. Aakhirkii xamaasadiisa qaboojiso gaar ahaan tan iyo markii aan iska indho tiray jaleecooyinkiisa xamaasada leh iyo baad ku dheelitirka aniga. Haddii ay aad u xumaato oo ay bilaabaan in ay ku boodboodaan aniga oo weydiisanaya ogolaanshaha aabbaha, wax yar baan ku leexday baaskiilkayga, shandad dugsiyeedkaygu way dhacday. Ninkii dhalinyarada ahaa waxa uu dareemay in ay waajib ku tahay in uu baaskiilka ka soo dego oo uu boorsada i dhiibo. Markaas oo aan sheekadii u beddelay mowduuc kale. Kuwani waa kuwa ugu badan noocyo aan waxba galabsan. Dabcan waxaa jira kuwa ku dhunkada ama isku daya inay qaataan gacantaada qabo, laakiin hubaal waxay garaacayaan albaab khaldan. Waan ka baxaa baaskiil ama diido inay si dheeraad ah u isticmaalaan shirkadooda ama u dhaqmaan sidii inaan ahay aflagaadeeyey oo si aan shaki lahayn u odhanaya gurigayga taga aniga laanteed. Halkaa